بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكريستياشا قدرنتي قيمها مدن برتان داونسان وقلبي تي في ورك عالمك waxaan nagu soo dhaweynaynaa maanta Suldaan Cabdigahiir Maxamed Jaamac oo ah kamid ah suldaanada waaweyn kana ah suldaanka bariga ee galbeedka Soomaaliya suldaanka guud Suldaan ku soo dhawow Galbeed TV بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وكل يوم دوهم وبورين halkan waxaan salaan ugu gudbinayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo daafaca caalamka ka joogto mar labaad waxaan halkan ka salaamayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka howlwadeenada dowladda aad baan u salaamayaa mar labaad waxaan salaamayaa bulshada gobolada galbeedka ee Awdal State waxaa kaloo salaamayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta maamul goboleedka Awdal State waxaan ugu dambeyn salaamayaa ciidamada Awdal State waxaa kaloo salaamayaa bahda saxaafadda aad baad maasantay Suldaan waan kaaga mahad celinaa waqtiga qaaliga aad noo hurtay annagoo walibana si nasiiba kula kulanay maanta Suldaan waxaan rabnaa inaan su'aasha ugu horeysa inaan kaa weydiino isagoo waqtigu nagu gaaban yahay bal haddana mar labaad kaaga mahad celino waqtiga noo hurtay Suldaan waxaad ka mid ahayd hormoodadii dhaqdhaqaaqa kacdoonka gobolada galbeedka bal nooga waran Suldaan xagga waxay marayaan iyo xaaladdu maanta xagee marayso bismillaahir rahmaanir rahiim nasr min allah wa fadqari kulli waarun waxaan kamid ahaa hogaanada dhaqdhaqaaqa kulli maamulka Awdal State kulli si fiican ayay horta wax walba abaabulka ugu adag waan ka soo gudbinay abaabulkii hore ee aan ciidamada ku tababaranay ciidamadii tababarkiintooda badbaad waa dhameysatay waxaan uga gudubnay inaan galno gobolka gudihiisii oo ciidamadii dhammaan ay ku xeroodeen waxaa bilaabmaya markaa howlgalladii lagu sugayay xuduudaha gobolka Awdal loo wadaago gobolada waqooyi sidaasay dhaqdhaqaaqeydii oo maraya marxaladii dhexe halkaasi lagu waxmaraya hagaag waxaan maqalnay Suldaan inay jirto waxoogaa khilaafa oo soo dhex galay idinka iyo ismaamulka dowlad deegaanka Itoobiya bal maxaad nooga sheegi karaysaa arrinkaas su'aal fiican kulli gobolku wuxuu xuduud la wadaagaa dowladda Itoobiya gaar ahaan ismaamulka kaliirka inta waa dal leh aqoonsi yahay oo shuruuc leh oo xuduud leh waxa weeye jabhada SNM sometime waqtiyada dagaalna dhex maro waan ka soo talawnaa xuduudaas kala soo talawnaa taasina waxa weeye waxay deelqaaf ku tahay ama gaf ku tahay aan xaqeeyay ka yimid anigoo aan kulli ay inta badan jabhada SNM arrimahaas iyadoo naga doonayso u tuhusan inaan Itoobiya gudaheeda saldhigyo ku leenahay oo raadinaysa iyaga inta badan soo talaabo waxa weeye isku dhac kale ma jiro xuduudeeda Itoobiya inay sugatana xaq bay u leedahay waxaana de mas'uuliyadaasi u wada madaxda iyo mas'uuliyiinta maamul kulli ismaamulka kaliirka wax isku dhici ma jiro xuduudeedu bay suganaysaa xaqna taa way u leedahay laakiin wax inta badan gardarrada ay ka timaadaa oo naba soo dhaafa anagu inta badan gudaha joognaa oo na soo dhaafa jabhada SNM kulli ama tuun qabta ama dareen qabta inaan Itoobiya saldhigyo ku leenahay anagu Itoobiya saldhigyo ku mari gudihii baanu galnay sometime laakiin marka dagaal dhaco waa la soo talaaba ama iyagaaba intayna soo dhaafaan yimaada oo ka soo gudbo xuduuda taasina waxa weeye gardarra cadaan ah oo jabhada SNM ay dowladda Itoobiya kula kacso waan garanay aad iyo aad baad mahadsan tahay Suldaan bal maxaa inii qorshaysan ood hadda as leedahay waxaasa noo qorshaysan amba waqtiga soo socda aad wax ka sheegi kartaa kulli waad mahadsan tahay adeer waxaa noo qorshaysan kulli roobo maalin ma wada dhisin annagu madax dhaqameed baanu nahay sidaan horeba u sheegay duruuf baa qoriga noo dhiibtay
waxaan noo qorshaysan in aan yagleelno shir ay isugu yimaadaan madax dhaqameedka siyaasiyiinta waxgaradka waayeelka qurba joogta ay isugu yimaadaan in wada tashi lagu sameeyo kaasoo lagu dhisayo kulli dawladdii awdal state taasina kulli shirada waa niclaamni imikana abaabul baa socda taasaan ugu gudbinaa. bal maxaad nooga sheegi karaysaa amba aragtidaada amba aragtida dheerba sidee bay u suurtagali kartaa arrimahaasi amba shirkaasi u qabsoomi karaa? wuxuu qarsoomi karaa xaq baan u leenahay inaan dhisano maamul goboleedka awdal state sida facayaguba u dhisteen taas oo biyo meel gudub bay isugu yimaadaan taas oo dowladda federaalka soomaaliya aan kaga mid noqonayno mustaqbalka. maxaad aad ku oran lahayd dadka aan fikirkaa qabin amba fikirka awdal state amba kacdoonka kasoo qabin inuu gobolku gooni u istaago hadda isku diyaarinaya doorashooyinka maamulka Hargeysa? horta kulley bulsho waliba way qaybsan tahay. annagu horta haddaan madax dhaqameed waan ka midaysanahay hawsha madax dhaqameed haddaan maqasho meel kastuu joogaba waan ka midaysanahay imanka laakiin manfac doonta ama kursi doonka waxaan u sheegayaa inta kaas maqaar saarka ee magacyaalka ay ku yaacayaan koodan ay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan. waxaan maqlayay baryahan waxaa loo wareejiyay kursigii la siinayaa beelaha bariga xaq bay u leeyihiin haddii la siiyo xaq bay u leeyihiin Somaliland taasay kasoo mid ahay waxa weeye kan inad ay ka qayb qaataan oo ay u yimaadeen ayaan ku boorinaya. waa kee kala siinaya markaa ma kursigii madaxweyne ku-xigeenka ah? kursigii madaxweyne ku-xigeenka weeye xaq bayna u leeyihiin beelaha barigu 25 sanadood waxa weeye gobolada galbeedku iyaga ku fadhiyay kursigiina maanta waxa weeyaan wax macfuul leeyahay ma jirto. sultan raali noqoda nin kaliya bar xaga ka maqalay laakiin ilaa 10 iyo wax ka badan baa galbeedka iska soo sharxay laftooda. ma dareensana 10 ka gacan saar bal liiga dibadana laga riixaya waa si uu gacantooda uga baxo iyagu laakiin ma dareensana haba saahatay kursigaas horta waa kan lugooyay horta gobolada galbeedka halna dhaaf kursigaas ayaan leenahay. waayahay bal siyaasiyiinta laftooda fikirka aaminsan ee imika u tartamaya maxaad baa u jeedin lahayd? waxaan baa u jeedin lahaa meesha ku luguyna taad xaq u lahaydeen waa tan waxba ku luguyna halka wax ma yeelan waa beel aan simanahay ma aha dawlad waxa ictiraafa oo wad u yaalaan ma jirto laba reer baan nahay ninka reerka oo marti tagaya haddii marti wax lagu siiyo isaga jirta laakiin tii waxaan qowlaha lagu horan waxa u siilaan tan weey. bal maxaad fariin amba baaq u soo jeedin lahayd qurba jooga iyo qulqul jooga waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka ka soo jeeda gobolada galbeedka? waad maadsantahay dhowr jeer horta hore waan ka hadlay qurba joogta iyo qulqul joogta kulli anagu qulqul joog baan ka soo jeednaa waxaan naga da'weynaa maamul goboleedka awdal state muddo ayuu soo socday waxa bilaabay qurba joogta waxaan u gudbinayaa fariin waqtigii waa dhow yahay waa inagu gaaban yahay annagu waa naga ciidankii abaabulnay gudaha gelinay dagaal toosi waa kaa socda waxaan qurba joogta siyaasiyiinta waxgaradka dhalinyarada ka codsanayaa inay mustaqbalkooda sidii miidaan ay ugu samaysan lahaayeen kulley waxaa nagu maqaalaa inta badan soo gaadha qurba joogtu way kala qaybsan tahay fikirka waa lagu kala duwanaadaa laakiin waxa qaybsan anagu ma aragno kulley waa noo yimaadaan waan qaabilnaa haddaba annagu waxaanu nahay madax dhaqameed kulley maadaama dowladda Soomaaliya dowlad ka sokaysa oo la ictiraafsan yahay anay 25 sanadood ka jirin weli aan anagu gacanta ku hayno masiirkii ummadda waxaan rabnaa madax dhaqameedkii haddaanu nahay inaan ku wareejino siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiintii awdal state naga horreeyay kulley taasi waqtiga la isku imanayo dib baan kasoo sheegi doonaa. sultan laakiin isku dhacan iyo dhinacntii waxaan aad maqashiin maxaa keenay miyaan dadku isku hadaf iyo isku aragti iyo ujeeddo ayna lahayn? kulley wax unbaa keenay fikirka si looma wada arko haba saahaatee
inaad garabiyo qurbujoog kuu qaybsamay oo inta badan waxaan maqalnaa laba madaxweyne ayay leedahay awdal state taasina anagu weli maanan arag si haddaba caqabada looga gudbo waxa weeyaan in imika laga soo bilaabo kow oo anagu ma maqli karno nin madaxweyne isku magacaabay mid la doortay oo nu ka qayb galina ma jiro kii haddaba haddaad idinku hore u lahaydeen kii imika waxaan yegleelaynaa ama maamulkii waxaan yegleelaynaa idinka oo qurbujoogtiya kulley qorada qurbujoogtiya anagu anu ka wada qayb qaadano oo si doorasho dimuqraadiya lagu doorto waxa naga go-an inaan councilkii ama baarlamaankii yagleelno kulley waxaan hadaba u sheegayaa xubin kasta oo danac kaga jira siyaasadda awdal state ama inay xubin ka noqoto ama golaha baarlamaanka ama golaha wasiirada inay kulley diyaargarow hor leh bilaabaan aada iyo aad baad mahadsan tahay suldaan kaasina wuxuu ahaa suldaan cabdi gaheer maxamed jaamac aada iyo aad baad mahadsan tahay suldaan waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga noo hurtay qaaliga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu